safiirka dowladda waddanka Djibouti u fadhiya Somaliland xaruntiisuna tahay magaalada Hargeysa Xuseen Cumar Kawaaliye oo telefishinka Star waraysi gaar ah ku siinay magaalada Hargeysa wuxuu ka hadlay doorashada Somaliland maanta ka dhacday waxaanu tilmaamay in hanaankeeda uu aad u sareeyay isagoo shacabka reer Somaliland iyo komishanka doorashooyinka iyo asxaabta qarankaba ku hambaliyay sidii doorashadaas u socoto Xuseen Cumar Kawaaliye oo arrimahani ka hadlay ayaa yiri representaanka Djibouti u jooga Somaliland waxaan maanta kormeer aan ku sameynay magaalada madaxda Somaliland ee Hargeysa waxa ka dhacay maanta foodkii baa ka dhacay madaxtooyada ay u lulamayeen saddex musharax marka anagu kormeer baan ku soo sameynay kormeerkan ku soo sameynay waxaan aragnay dad si fiican u footeynaya si qurux badan bislaaday wax dhibaato ah oo jirtayna maan arkin marka foodkaasi si qurux badan buu u socdaa ilaa imika inta aan joogno inta kalena saas leeg baan rajaynaynaa insha Allah waxa qurahatay in xaqani aan ka sheegayo inay dadka reer Somaliland iyo dawladda iyo maxkamada komishanka qaranka foodka loogu talagalay inay kormeer ka noqdaan ay maamulaan hambaliyaan u gudbinay waa si qurux badan bay ay dadku deganayeen u shaqeynayeen in kuwa xafiisyada jooga in kuwa kale dibadda jooga askarta iyo shicibkuba maanta hambaliya baan kale gabigoogaba Xuseen Cumar Kawaaliye hadalkiisa uu sii watay oo wuxuu tilmaamay inuu soo kormeeray goobo kala duwan oo ka socoto doorashada Somaliland waxaanu soo dhaweeyay hannaankii shacabka reer Somaliland isku awaawleen waxaan soo maray in 5 goobood baan maray Maxamuud Haybe in Axmed Lagax in maxanka Koodbuur in 26 Juun gacan libax saddexda baan soo shanta gobol baan soo maray shantuba si fiican bay uga dhacaysay ay dadku u joogeen waliba iyadoo loo khidmaynayo dadka baahida gaarka qaba hadii kuwa cagala aan aragnay kuwa degaariye lagu sidoo la keenay wallahi aad iyo aad bay dadku ay u bislaadeen hambaliya baan kale gabgoogaba kuwa shaqaynaya iyo kuwa footeynaya shicib weynaha dhamaantood waxaan leeyahay sida ay u socoto ilaahay ha noogu dhameeyo inaad wixii anagu waxaan shaqadeedu de shaqo kuma linataa waxaan oran leeyahay hambaliyo ma oran leeyahay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa